باب كلايدي والله دغاي بقولنا ادو كeenay yaad bay ka qaadeen waqtigaagi yalla baad kaga boqoshay kunti qaandhacayn iyo golbaas ma celiyaan halkaas waa baraayi qorlugud weey meesha laga dulgabayo waa baraayi qorlugud weey uma bareeraan waqtigiisa kuma soo dhacaan baabu soo dhaqan kuwa hooyayaasha qorluhu ku dhacaya saak Allah hooyadin ku yahay badda qorlugud guuray waa laga maqlay la ilaaha illa allah ciidamada militariga SS Khaatumo oo hambalyeeraya guulaha ay keeneen jaaniska aan maanta haysano reer SS Khaatumo wallahi suma wallahi boqolkii sano inoo soo dhaafaxtayna ma soo marin lagu soo duulay ee doonaya ee sanadkii barkana daba socda bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad aamus way dhowdahay aamus halka igu jooj waa tahay dhageystayaal iyo daawadayaal meel kasta oo joogtaan soo dhawaada wararka dagaalka maanta ka dhacay qorlugud ayaan idin wadaagaya insha Allah faahfaahinta wararkaasi qaabka dagaalku ku bilowday iyo natiijada dagaalka ugu dambeyn halka maanta la kala joogo khasaaraha absolutely wixii soo kordhay waa idin socodsiinaa insha Allah si toos ah muuqaalka si shargale oo meel dheer ka tur horeen horta maanta dagaal qaraar baa dhacay mariyad dhiig la kala furtay xalay waan idin sheegay waxaan berrito waa suurtagal in dagaal dhaco waayo waxaan ogaa jugti xalay shalay gaadhay nimanka jabhadda argagixisada khawaarijta SRM horeen horta marka koowaad dagaal qaraar baa maanta dhacay dagaalkii bilowday 7 subaxnimo waxa uu istaagay galabta galinkii dambe markii gabalka uu absolutely uu sii dhacay dagaalku laba goobood ayuu ka socday oo qorlugud midna 1 kiiloomitir bar u jirta midna qorlugud u jirta 2 kiiloomitir taasoo markii dambe suurto galisay ciidamada militariga daraawiishta SS Khaatumo inay gudaha mar kale u galaan markii labaad shalay ay ahayd markii gudaha u galeen maanta inay mar kale u galaan tuulada qorlugud halka gabayga laga tiirinayo waa qorlugud weeye weerarka yaa qaaday weerarka yaa amarka laha yaa qaaday waxaan rabaa weerarka inaan idin sheego waxaa weerarka qaaday ciidamada militariga daraawiishta SS Khaatumo kadib markii ay xog sirdoon ay heleen in ay jiraan kooxo maleeshiya ah iyo ciidamadii jabhadda khawaarijta argagixisada SNM oo isku soo urursanaya inay weerar fulinimo ah oo gaadma ay ku soo qaadaan mid ka mid ah saldhigyada ama difaacyada ciidamada militariga daraawiishta SS Khaatumo taas iyagoo ka duulay ciidamadu weerar ku ekeeyeen halkay isku urursanayeen ciidamada maleeshiyaadka jabhadda khawaarijta argagixisada SNM weerarkaasi oo laba geesood ahaa ayaa ilaahay idankii wuxuu suurto galiyay in markiiba la kala cayriyo halka markay joogto ciidamadeenu waxay dib ugu soo laabteen fariisimahoodii ay hore u joogeen ee galgal halkaas oo ciidamada amar lagu siiyay inay joogaan markii dambe way soo urursadeen duhuradii gurbad baa u yimid gurmadka markay xoogaa koomba yar isla xireen xoogaa yar ayay soo rogaal celiyeen mariga dhiig haddana la kala furtay dhimashada xaggoodu waa torab weeye waa muush weeye waxa meesha mid ay kaga carray intay ka carareen baa 12 intay qaateen waxa weeye hadii la kureeyo waa muush tira ma laha dhaawac isagu wayna daaweyne waxa dhaawac isagu waa muush isaga laftigiisu meesha nimanka dharbaaxa kulul ayaa ku dhacday waxaana keenaysa waxa weeye dadku kala awood badan dabcan labada ciidan kala awood badan ciidana waa ciidan dhisan oo military oo daraawiisha dawladda SS Khaatumo ciidamana waa kuwii khawaarijta weeye oo already intii awood lahayd dawati goota cad lagu leefay moogta xogaaga yar ay isku soo ururiyeen SNMtu xogaaga yarna away ma hor istaagi karaan ciidamada militariga way markii ay weerarka laba soo qaadeen ararkii waxa la gaarsiiyay meel la yiraahdo Cayaale shishadeeda oo qorlugud ay tagayeen 1 kiiloomitir inay u jirto waxa way meelaha qiyaastii ayaa cararkoodii farxadkoodii galay madafiicdii ciidamada SS ka ridayeen baraagaha qorlugud ayaa gudaha qorlugud ku dhacay dadkii iyo maatadii waa ka yaaceen muuqaalkan daawanaysa waa gabar ku sugan tuulada qorlugud markii ciidamadu SS ay gudaha u galeen xabadda qorlugud gudaheeda laga maqlayaa waa tareer dhageysta rag waxa galay ka soo socda shahadu la ilaha illa allah shahadu la ilaha illa allah way halka ay joogto waa dhageysanaysa waa qorlugud gudaheeda weeye mid ka mid ah saraakiisha oo la hadlay wuxuu ii sheegay ceelkii riiga ahaa ee qorlugud ku yaalay
حقنا بريق ودافين حقنا قلبيتك ودافين حقنا وقوي ودافين ciidamadeenu hada waa dadku reer quru way garanayaan riigoodu meesha ku yaal way garanayaan taas markay suurto gashay dhimashadii faraha badneeyna ka carareen galabta galinkii dambe waxa la amray ciidamadu inay fariisimahoodii hore ay ku soo laabtaan waxaan hadda ku sugan yihiin muuqaalkan daawanaysid waa galgal weey galgal soo jeedid galgal bay ku sugan yihiin galgal marka meesha horta la isku leenayo waa meelo 1 kilomitir ilaa 1 kilomitir wax badan horta isku jiraan meelaha dagaalku ka dhacayo laakiin dagaalkii maanta dhacay wariba galinkii dambe duhuradii waxa dagaal qaraar buu ahaa oo markii gurmadka heleen weeyay laakiin dharbaaxa lagu dhuftay dharbaaxo wallahi billahi tallahi cabaadka ka baxaya iyo qaylada ka baxaya iyo firmid kale way soo ordayaan wiilasha reer SSC qaatum ciidan military waa niman cabisan way waa niman tababaran way amar qaadashada dib u tag hore u soco moogta qaabka xitaa ay dadka moogtahay hanaad ugu farxay kala dambeynta iyo dowladnimada dadkeena deegaankeena ka hana qaatay waagii hore marka magaalo la galo waxa dadku waa caadifeedsanaayeen marka laakiin maanta ciidankan amar qaadasho adabka qurugu gudaha loo galay shacabka lama leeynayndi shacabka iyo maatada gacan lama saarin waa dawlad weey waa administrationka ay u dhisan yihiin ciidamadeenu ayaa inay shacab iyo maato aysan lahayn waayo shacab iyo maato wax wanaagsan ma waxa uu hadda iyagu sameeyeen oo ay shacab iyo maato duqeynayeen inagu absolute duqeymeyno sababta weeye waa lagu jabaa dagaalkaas oo kale dagaal hadda dumay ciyaal leysid waa lagu jabaa waayo xeerka dagaalkan wax ka naqaanaa moogta qof laga adkaaday qof fulay ah ayaa waxa uu hadda la kuurayahay shacabka iyo maatada laaya marka waxaan arinta u soo qaatay ciidamadeenu qaabka kala dambeynta leh in markay magaalada galaan tuulada qornugud ay shacabka u safgareynayaan ay markii milishaadkii ay ogaadaan inay ka dhameeyeen oo ay ka caydiyeen oo ay bacsadeen amar qaadasho dib ay uga soo baxaan halkan markay marayso xaaladdu maxay ku dambeyn doontaa xaaladdu waxay ku dambeyn doontaa qornugud dowladda iyo wasiirada khaatumo iyo dowladuba go'aan cad bay ka soo saari doontaa saacadaha soo socota baafarsoon bay noqon doontaa qorlugud xarun ka caagan dadka shacabka qorlugud ku nool waxaan leeyahay imaatada ka carara ka war alaabtina ka urursada waa markii labaad weeye ee qorlugud gacanta SSC ay soo gasho waxa la dhowrayana waa dumarka ciyaalka imaatada weeye gabadhay wiilow leey caruurtaada kala bax meelihii kale aad caruurtana geysan kartaa geysta meeshani goob dadka bini'aadanka ka caagan bay noqon doontaa xarun ciidan bay noqon doontaa base military SSC khaatumo ay leeyihiin waana meel laga ilaalin doono danaha SSC khaatumo ayay noqon doontaa qorlugud shacabka door ee degan waxaan leenahay nin kuu digay kuma dilin waa markii labaad weeye hadda marka saddexaad waxa weeye waa caadi bad ciidanka isku hordhigaysan moogta wiilashan indhaha gudgududan ee waxa weeye military daraawishta SSC khaatumo laba jeer bay insaaf gareeyeen laba jeer bay sharciga dowladnimada iyo hanaanka waxa uu ilaaliyay hatta dad meeshii dhex fadhidaan dib wax agta la dimarinaya ma garad waxa uu shacab la laayo leeyahay wixii la ascaanood ka dhacmaan ilaa moogta marka war qofka nintiisa jecelo caruurtiisa iyo ciyaalkiisa kala baxo taas waa taa maamulka SSC khaatumo ciidamada militariga SSC khaatumo waan hambalyeerayaa guulaha ay keeneen ay durbawa soo hoyeen guulaha la taaban karo kala dambeynta iyo shuruucda qaabka ay u ilaalinayaan iyo guulaha ay ka keeneen cadowga jabhadda khawaarijta argagixisada Islam SSC khaatumo maamulka kaliya ee 4 furnamood ay ku furan tahay ku filan maamul sanad iyo barjiro weey jiida ergaabo jiida waxa way salinta jiida boqdarkeen iyo laba jiidood oo gobolka Cayna hadda moogta marka capacity-giisa aad u sareeya waayo wuxuu leeyahay oo caawa diyaar u ah 20,000 oo wiil oo ka tirsan military daraawishta SSC khaatumo iyo shacbi taageersan waxaan rabaa inaan dabana carabaabo muuqaalkana gaarsiiyo wax doorasho oo ka dhici karta qorlugud oo ka dhici karta Caynaba oo ka dhici karta ergaabo iyo alafeen iska ilow ma jirto ninkii taa qabayo ma jirto iska ilow military siba la wareegaya sanaaduq baan la keenayn ama idinku isdila ama hay'ad ka dhex bilaawato ama hadii la kuuriyay idinku ku heshiiye ama waxa way idinka idin qosaysaa wax doorasho oo ka dhici karta ma jirto min reer SSC khaatumo leeyahay wariyada SSC khaatumo nimankan waa cadow weey
jaaniska aan maanta haysano reer SSC Khaatumo wallahi suma wallahi boqolkii sano ayna soo dhaafaxtayna ma soo marin maanta cadow ugu dhowda jabkooda maanta maanta ugu dhowda inaynu ka takhalusno inta yar Hargeysa Burco joogta inaynu ka takhalusno maanta inuu ugu dhowda doorasho haday si nabad ku qabsadaan oo aynaba iyo hadii la kuuriyo tuulada qorigooda ay doorasho ka qabsadaan war cidda berito loo soo socdo waa inay Soomaa مين هشين ساقي نو أسرم ينو مين هشين هدaynan heshiin sabab ay doorasho si nabad galiyo ay uga qabsadaan adafiri dhulka carbaabay ma jirto haday doorasho nabad si nabad u qabsadaan oo xukunka si nabad ku kala wareegaan war cidda future-ka la isu soo diyaar gareeyo oo la isu soo horursanayo adiga weey waxa ma ka daawanaysaa way maamulka waliba masuuliyadda saarata shacabku tala gacanta uma jirto maamulka talada gacanta ugu jirta waxaan leeyahay fursada weyn laga faa'iido waa in ilaa ay gaabo ilaa ay guumeys ilaa salinta ilaa boqorkeen ilaa hadii la kuuriyay tuulada qorigud intaba waa in hadii la kuuriyay waa inay noqoto dhul ka caadan bilaadanka iyo shacabka hada moogta oo inta la sameeyaa waayo maanta fursada hadayna ka faa'iideysan wara maanta isaaq isku dhaweeyno madax isla galo inuu madax iska gooyo maanta isku dhawada hada moogta maanta isku dhaweeyno ka faa'iideysano cadawga naxariis looma sameeyo wara haday taaniska ay ugu haysan lahaayeen haday taaniska ay ugu haysan lahaayeen meedalta way dayic lahaayeen may sabeer dareen way ka faa'iideysan lahaayeen marka waa in doorasho mamnuuc iska ilow doorasho iska ilow kuwii doorasho raadinayay hadii la kula garaarsi lahaa namada oo kuwa maanta dagaalka ku jira ragga ugu badan ku dhintay waayaga way maanta daawac ugu badan anaguna markii hore waa dhimanayeen haddana waa dhimanayaan mana kala jeclin hadda moogta marka iska ilow doorasho waxa iska ilaawa isaaqow iska siiye mar labaad iska siiye intaas weeye waxa leeyahay bulshada reer SSC Khaatumo diyaar garow balaaran sameeya taageerada ciidamada militariga iyo dawladda iyo taageerada dawladeena garab istaaga dawladeena aynu garab istaagno waan u hambalyeynaa wiilasha qalasida ee guuleystay midowda sheegay qorlugud waa gacan weeye qorlugud kowdhe og laba dheh aynoo saddex dheh celaf weyn cerigaabo afartaas buu noqon doontaa meel militariga dawladda SSC Khaatumo gacanta ku dhigaan oo base u noqdo base 12 bari waa noo dhiman noo tahay nasuga oo macadowga la sugaa oo nin la qoriyo hubban ku soo qaadanaya nin la ku soo diyaar garoobaya masuuliyadeed may lama sugo fursada hadda dayacdan maamulka Khaatumo fursadan maanta cadowga ku haysano si bareefadan waa idinku sheegay si babliin waa idinku sheegay fursadan cadowga maanta ku haysano hadda dayacdan oo naga sid namada doorasho deegaanadan arabaabe uga qabsan war barita ninka la soo horursanayo adiga way hadda moogta inta loo soo diyaar garoobay adiga way anaga Muuse Ciray Faysal Isaaq wano Isaaq anaga ma kala jeclin idoor wano idoor asram wano asram marka maxaynu hadii la kuurayahay taaniska hore maxaynu ka faa'iideysan aynu ka faa'iideysano insha Allah ta'ala dagaalku waa soconaya cibaadaysan cidiga ku hayo wallahi daribo waa igu celin ayaarahaygi wixii maanta ka dhacay gobolka Ayna wiilasha qalasida cibaadaystay ee waxa weeye hadii la kuurayahay hanta harubla ka dhigay waan u hambalyeynay way cibaadaysteen wax dagaalka maanta ku dhintay marka laga yimaado askarta baada argagixisada Islam oo tarab hadii la kuurayahay tarab ah waxa dhintay gudoomiyihii degmada Bilidhig ku dhintay baraayaha qorlugud ku dhintay isagoo siiriga haysta oo la gala dagaalka war hadib ha bixina war nimanku waa nagu soo socdaan war difaac ay noo xira isagoo leh ayuu hadii la kuurayahay salaanta ka dhacday muxuu yiraahdaa halkan gal muxuu dhahaa waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga qorlugud waa laga maray wiilasha qalasada iyo militariga isba ka maray ninka waxa lagu magacaabaa magaciisa Jamaal Yusuf Haybe sawirkiisa oo jeedaa ninkaas waa ku daayay ninkaas absolutely waa ku daayay meedkiisa meeshii yaala baraagii qorlugud waa nin xaqooda ku culus buu ahaa isagoo la wardib ha u bixino war ciidanka difaaciyada noo xira ayay salaanta kaga dhigtay waxaana ku cibaadaystay mid ka mid ah askarta militariga daraawusha dawladda SSC Khaatumo runtii qaab aad u tababaran waa masaafada uu ka togtay iyo meesha uu joogay way xogaa masaafo yar baa u dhaxaysay isagoo la wardib ha u bixino war difaaciyada noo xira bay salaanta kaga dhigtay waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego muuqaalkan ila dhageysta waa shalay markii ciidamadanu gudaha u galeen ee arkeen indhahoodii fiiri haweenkii caruurtii markay arkeen ciidan qalabeysan oo militariga SSC Khaatumo oo gudaha u galay oo si nabadgelyo markii hawlgalkii u dhameeyeen dib uga soo baxay hablihii waa kuwan
guuldarrada iyo xogtan waxa laga ogaadaa hablaha laga ogaadaa moogta hablaha waa kuwan ila dhageysta inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun belada wixii doonaya in lagu kudu kuwa lagu soo duulay la doonaya sanadkii barkana daba socda bismillahir rahmanir rahiim allahumma salli ala muhammad amusa waa dhawdahay amusa halka igu jooji inta ka badan waxa weeye hadii la ku idima daawsin karo Twitterkayga soo dhigay Abbas Madani baad ku qori kartaa Twitterkaygu ayuu ku jira waa shalay weeye uu sheegay dagaalkani waa soconaya absolutely dagaalkani waa soconaya qorlugud iyo hadii la ku ragay ya aynama iyo dhulkana waa kan ku qaban lahayn weey haloo diyaar garo hala taawashaysto intaas ku soo gabagabeynaya khayr badan iyo jira insha Allah wixii ka soo kordha wararkaasi xaaladu waa fiican tahay xaqeena diyaar garow waa 100% khayr badan iyo jira insha Allah